dhalinyarada waxa keenay siigado kale baalkan ilaa waxa soo gashay 6 iyo 3 xidid baa soo gasha marka ninka dhalinyarada baasha siigada uu sameeyo baalkii wuu yaraanaya wuu qaloocanaya horta dhalinyarada gabdhii waxay soo weydiiyeen ninkan biyaha sii deynay halka daqiiqo maxaa hal haysa walaa kiisas badan baa igu adkaa waxa igu adkaa ninkii tan la ii keenay anagoo dhakhtar oo shaqeynaya iyo 3 bilood anigu baalkii ma arag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan u bishaareynayaa macaamiisha Daaruraxma Dr. Jaamac Cabdullaahi Ilaala Jecel inaan joogo Boosaaso maantay Ilaahay nabad keenay dadkii arday sugayay inay joogo waan horta taa ogeysiis iyo calaamad ku siinaya insha Allah wiilashii gabdhihii aan balansanayn midda labaad waxaan soo kordhiyay daawooyin fara badan oo ay ka mid tahay hadda xanuunka la yiraahdo kansarka oo Ilaahay ugu guuleeyay maadaama su'aalo badan dadkii soo weydiiyay oo ay leeyihiin bal xanuunada daawaysi warbixin naga sii waxaan rabaa halka inaan ugu soo gudbiyo waxyaalaha Ilaahay ugu guuleeyay waxa Ilaahay ugu guuleeyay sokorta waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la oran jiray gaaska waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la oran jiray galaha ama infectionka waxa Ilaahay ugu guuleeyay xanuunka la yiraahdo gaaska haddaan tafaasiil marka idinka siiyo Soomaalida example xanuunada aadka ugu fara badan oo hadda isbedela oo kansarka isku bedel waxa kamid ah baabasiirka iyo xanuunka gaaska la yiraahdo gaasku waa lab iyo dhadig markuu ma ogolaado xanuunshada hoosteeda olol buu leeyahay markuu qofka ku raagaro kurtum buu samaystaa biyaha iyo caanaha marka cabaysid waxbay dajinayaan oo hoos u ruuxiyaan baas leedahay mar bacteria sima dibru leeyahay marka gaaladu ay inta qalabka microscope la saaro ay arkaan nabaradii wuxuu leeyahay qofkan waa kansar waxaan u sheegayaa inuusan kansar ahayn la badbaadin karo qofkaas aan la qalin aan kula talinayo horta Soomaalida xanuunka la baabasiirka kale feex buu sameeyaa saddex nooc mar wuxuu galaa dabada wareegeeda banaanka nahro burburan baa dawada samaysaa marna wuxuu galaa walamadka afkiisa hoos oo qanjiro burburan buu leeyahay fartu gaadho oo qofka saxarada dhinac uga timaada marna wuxuu galaa mindhicirka oo dawladana way cuntaa qofka saxarada kuma timaado marka feexda oo qalabka microscope inta lagu fujiyo la arko wuxuu leeyahay waa kansarna ma waa baabasiir daaweyn waxaan siinaynaa dawada la marinayo oo soo nuugayo oo qashinka ka soo saaraya waana fadli Ilaahay example xanuunka la galaha raga saddex noob ugu dhacaa gala nuug iyo gala bar iyo gala qanjir baa leeyahay mar labada xaniyood baa ku dheeraanaysa buluq dheer bay noqonayaan marna way kala dheeraanayaan mar xaniye iyo xubinta taranku way yaraanaysa shahwadu waxay noqotaa wax jilicsan oo biyo hadii la soo baxay marna waxba ka imaanayaan xaniyahaaga hadaa saa u taagtay waxaad moodaysaa silsilada sideeda kale ayay u laalaamayaan wax burburan bay noqonayaan marna de waa xaniyaha iyo wax oo dhan waa khalaas bay noqonayaan waa dhamaanayaan ninkaas ay ugu fiican yani fariistay oo waxba soo waayay laana wuxuu ogaanay wixii ay ka sii daawadayda marka waxa bishaaro Ilaahay fadligiisa waxban baa Ilaahay ugu guuleeyay waxaad ka helisaan daawooyinkeeda hadda meelo badan oo kala duwan adduunka ah sida wadanka la yiraahdo Koonfur Afrika sida wadanka la yiraahdo Uganda sida Hargeysa sida la yiraahdo Muqdisho sida la yiraahdo Galkaayo sida la yiraahdo Garowe meelahaas oo dhan way itala waxaan ka maamulayaa telefoonka waa ogtiin adduunka waa hal magaalo maantay waana Ilaahay fadligiis wada shaqeyn wanaagsan reer Daaruraxma waxaan joogaa Boosaaso ku soo dhawaada gacmo furan Daaruraxma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دكتور أنا صحيح هنا واحد أشوف حنون بدن كم جديد المدينة حقنا داوسي أنت حاجة مرة ما شاء الله ما هرت واحد كان تدرين كاو أنت كعي نقضي لأن يرى واحد كان سيجاد وكله ما كان اللي واحد سوق الشليح يسد الحديد بسوق الشه ما كان نكد اللي يرى باجا سيجاد أو سمايو بالكي ونيرانا يا ونقلوا عنا يا horta dhalinyarada waxaan kula talinayaa inaysan baashaas ka tanasulaan aysan siigaysan si mustaqbalkooda u dhumin inay toobad keenaan ka bacdina iska ilaaliyaan qofkii hadda hore ugu dhacay waa inuu si degdeg ah soo booqdaa bartayda YouTube-ka Dr. Jaamac Ilaala Jecel waa inuu soo booqdaa waa inuu si degdeg ah soo waca insha Allah دكتور مدينة ضب intay asbaab daawadaanin dibadda kala jooga waxaan daawada roonay oo soo dalbado ilaa ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay waxa macaamiisheedu joogtaa Canada ama waxay joogtaa Ingiriiska waxay joogtaa Australia waa haddana waa ku tusi karaa inaad codkooda iyo nambaradooda xataa waa ku siin karaa iyagaana igu amray inay qof kasta oo Soomaaliya oo shaki ka muujiyo daawadaada nambarada si anaga la soo xiriirina anaguna na soo waceen dadkii macaamiisha ah 9 bilood qaar baa isticmaalay 6 bilood qaar baa isticmaalay horta Soomaalida waxa aad ugu xumahay dadka ila jooga nin walba wuxuu hal bil inuu ku soo aftay daawada hal bilna waxba ma kordhinayso waxa la rabaa wax kuura in loo isticmaalo kuuradina waa 3 bilood
aan kula talinayaa dadka xama badan baa jira oo nin baa inta bil ka qaad wuxuu leeyahay waxba tagi mayso hadda maxaa wixii ku jiray baa kicisayba maxay wax tadhaa hal bil waxba faa'iido ma leh lacagta waa iska khasaarin waxa long time qofku inuu maartay ila wixii kiimika baa moogto walaal waxa la qofkii inuu dhacaamadii la curiyo oo la dhago uurkii xanuun dhinac caloosha xakunta marka daawadeen waxay sameynaysaa caloosha baa dhaqmaysaa awoodii raganimadii baa soo noqonaysaa ninkii odaga Soomaaliya ha noolaato marka waxa yaraado ma ilaahay u guuleeyay dad badan oo odayaal iyo dhalinyarada isugu jiro oo dhinac aad uga cabanaya waxa leedahay hadii aad daawada qaadato laga sheegay garo islaax soo jeen baa soo saaray kalsooni buuxna waa qowa hadda 74 qof baa ii diiwaan ka xagga taranka hadda inta ay fadhidin waa ku tusaya qaybaha kamida oo Australia kuwa Malaysia inta population-kayga oo dhan waa ku soo bandhigaya iyagana yiri number-kayga waa siin ka dhaay ku dhaga Australia jooga qof kasta Soomaaliya ku weydiiya waan ku mahadsanyahay ayakuna intii aad ku shaqeynaysaa kiiskii kugu adkaa xanadu kugu adkaa daawaysa wallahi kiisas badan baa igu adkaa waxa igu adkaa ninkii tan la ii keenay annagoo dhakhtar oo shaqeynaya iyo 3 bilood anigu baahlkii ma arag waa in 3 bilood oo dollar baa lagu daaweyn karaa oo aniga ayaa taagay iyo muqoriyaha halka ka soonaysa aniga boqolaal iga siinaysa watan hadda loo wada raaci jirnay ila anigu dabii maahay mujarrib baan ay mogti aniga cilmigan wuxuu ku yimid ka dhacay labada dhexdooda daawadan waa daawada iga keentay nimaan nasabkiisa aqoon inaan gabar baan ku siinayaa aan dhalay ibar dhirta 64 geed baan ka qoray oo labiya dhadig loo dhir magaalada baad dilay marka kiisaskaasna ilaahay way ugu guuleeyay marxaatigeena youtube ka keenaysan dr chama ilaa jecel qolna go'di absin ingiriis rag waa wada qabaa waxaan kula talinayaa nimanka Soomaalida gabdhaha horta Soomaalida waa u duceynayaan waana amaanaya waa dad samir miran laano naaga ajnabiga adadan habeenkii shaqada qaban uriga subaxdii quraac ku siin mayso laakiin gabadha Soomaalida way dulqaataan runtii waan ku amaanan yihiin laakiin inkastoo ay wax u soo qorayaan hadda waa kuwan hadda ku tusaya gabdhii waxay soo weydiiyaan ninkan biyaha sii deynay halka daqiiqo maxaa xal waysaa handbrake baan soo saaray waa maxwar buu ugu reebay leedahay waa daawadeeda qanjirkii baa sifoobaya awoodii baa soo noqonaysa gabadhiina waa boganaysaa arrintii long time waqti dheer baa isla qaadanaysaa marka waa ugu bashaareynaya gabdhahana dulqaadkoodii waa aad baan ugu salaamayaa doctor marka laga yaabo ragga ma aragtaa dumarkay ku yimaadaan ku yiraahdo ragii baa waxa weeye awoodii kabaya bal daawooyinkii aan siinay amna sawda iyaga gabdhaha baa iga iibsha daawada in badan baa ila soo xiriida indhama baa u iibsa daawada xagaagay wax la qadiya gunta ka weyn bay oran jireen Soomaalidu moogta daawadana waa wax Ilaahayna siiyay weey oo si adduunka qaaradaha isaga gudbisa oo Ingiriiska oo kale hadda meesha Australia oo kale waa toos bay u xreeyeen daar rahma in badan oo ka bida Ilaahna waa ku guuleeyay anigana way ila shaqeeyaan runtii oo waxba iga iibsadaan waxaan soo saaray iga iibsadaan dadka gudaha jooga waxa iga fiican dadka banaanka jooga oo wixii Ilaahay nasiiyay ayaguna soo bandhigaya kuwa hadda gudaha jooga way qarsanayaanba example hadda boosaaso kale waxa ay qaabilsan halka aan fadhino ninkan batri ninkan baa ay qaabilsan wuxuu wataa 73 84 ma garad boosaaso ninkaas ay qaabilsan gaalkaayo numberka la yiraahdo 73 49 81 waxa kale laga helayaa Garowe 71 konton 94 waxa laga helayaa Hargeysa 063 24 10 583 583 baa laga helayaa xamar waa laga helayaa daawadeeda hadda caawa way taala waxa kale oo taala Koonfur Afrika waxa ka taala Uganda wada shaqeyn wanaagsan halkan uga dirayaa dadka luqadda Soomaaliga ku hadla meel kasta adduunka joogeenay in aanu hayo daawooyin tayo leh oo meesha Japan iyo Turkey ay aadi lahaayeen meel fog aniga dalka gudihiisa aan soo saaro intay rabaan borderka rabaan aan siin karo waliba qiimo jaban ku siinayo ayaan ugu bishaareynaya dadka daawooyinka iibsada oo meelaha fog u keenaya waxaan dadkoodana wax yeelin oo tayo leh waan u hayaa oo qiimo jaban u iibsana baan ku soo dhaweynayaa inay aniga jiblahan iga iibsadaan intay bodan fog oo diyaarada soo saari lahayn aniga Ilaahay u guuleeyay oo intay rabaan kuntarka rabaan u diyaarinaya taasna waa fariin aan firayo dadka daawooyinka ku hawlan inaan u soo saari Ilaahay u guuleeyay inay iga iibsadaan insha Allah aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka